صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة في الله، meel kastoo aad joogtaanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. kusoo dhowaada barnaamijkeennii daawada soonka. xalqadani waa midii 8aad. waxaanan ku qaadaa dhigi doonaa ama aynu ku eegi doonaa alacdaaru alsharciyatu fi shahri ramadaan. yaa loo ogol yahay, yaa cudurdaar leh inuu afuro iyada oo soon iyo ramadaan lagu jiro. cidda cudurdaarka leh ayaynu meeshan eegi doonaa, oo dadkii kaloo sooman iyadu inay afurto ay u bannaan tahay. dadka iyaga ah, dadka arrimahan soo socda laga helay ayaa cudurdaar leh. kow, almaradu waalkibaru. jirada noocay dooni ha ahaato, jiro uusan qofku la soomi karin oo ka reebtay soonkii, haddii ay jirto qofkaasi waxaa u bannaan in uu afuro oo uu maalin kala soomo. da iyo duqnimo hadduu noqdo qofkii oo uu jilco oo bitaali uu soomi kari waayana, qofkaa isaga ah waxaa u bannaan inuu afuro. marka dee da-da iyada lagama soo fiyoobaado, qofkii ma dhallinyaraanaye, qofkii markaa fidye ayuu bixinayaa. qofka da-da la jilcay iyo qofka cudurada lala noolaada ee aan laga bogsoonaynin qaba, labadaba fidye ayay bixin doonaan, sidaan u tegi doonno. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar. midkii idinka mid ahoo jiran iyo midka musaafirka ah, labadaba maalmaha uu afuray maalmo kale ayuu kusoo qadaynayaa oo uu soonkii soomayaa. jirada laga hadlayo ee aayaddu ay sheegtayna waa almaradu aladii yurjaa bur'uh. waa jirada laga rajo qabo inuu ka daawoobo weeye. amaa da-da, alimaamu bukhaari caleyh raxmat ullaahi ayaa sheegay oo wuxuu yidhi, qofku wuxuu quudinayaa miskiin. markuu qofku da la jilco, miskiin buu quudinayaa markuusan soonka awoodin. anas ibnu maalik radi allahu canhu 2 sanoo cimrigiisa ka mid ahayd, cimri dheer buu ilaahay siiyey anas ibnu maalik, khaadimkii rasuulka sala allahu calayh wasalam. ducadii nabiga uu u duceeyey inuu ilaahay cimrigiisa dheereeyo ayuu ilaahay u aqbalay. cimrigiisu cimri dheer buu ilaahay siiyey. marka da buu noqday, wuu jilcay. 2 sane u dambeysay waxaa weeye fidye ayuu bixinayo oo ma uuna soomi karin. maalin walbana miskiin buu quudinayaa, quutu ahlilbalad. magaaladaasi waxa cunto looga yaqaano, miskiin buu waxaa weeye cunto siinayaa. ibnu cabaasna radi allahu canhu ardaa, markuu sheekha ka hadlayay da-da ah, wuxuu yidhi, sheekha ama ha noqdo qof dumar ah, qof da-ah oo dumar ah, ama mid lab oo da ha noqdee, ee aan awoodin in ay soomaan, falyuطcima makaana kulli yowmin miskiina. maalin walba miskiin ha quudiyeen. imaamu lbukhaari baa aharkaana soo saaray. waxaa kale oo loo ogol yahay in uu afuro qofka musaafirka ah. aayaddii haddaayaan akhrinay, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin baa daliil u ah. qofku markuu socotada yahay in uu afuro ayaa u bannaan. waxaa xusid mudan, ilahi wuxuu yidhi, wa an tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun.
qofka musaafirka ah ma inuu soomaa u fadli badan mase inuu afuraa u fadli badan waxa weeye haddii uusan wax dhibaato ah uusan arkaynin uusan ku dhib mudanaynin isagoo musaafir inuu soomo ayaa u fadli badanoo wa anta suumuu khayru lakum weeye laakiin hadduu ku rafaadayo ku dhibaatoonayo wuu iska jilicsan yahay marka isaga ah inuu ruqsada ilaahay qaato ayaa u fiican waxaa kaloo loo ogol yahay inay afuraan ficlanna uusan soonka kaba asaxaynin waxaa weeye gabdhaha qaba caadada alxayd wanifaas iyo dhiigumuleedka iyo dhiigga caadada haweenayda uu ku dhaco waxaa weeye soonkii loomaba ogola iyaga inay soomaan kamaba asaxayaba marka laakiin inay afuraan oy cunaan oy cabbaan cudurdaar bay u leeyihiin waa asxaabu alacdaar sharciya ayay gelayaan marka isaga midka afraad waxa weeye alxamlu walradaaca waa uurka hooyada uurka leh inay afurto way u bannaan tahay waa cudurdaar sharci ah hooyada wax nuujinaysana iyadana cudurdaar sharci ayay haysataahoo way afuri kartaa liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam baana daliil u ah ina allaha wadaca can ilmusaafiri shatra asalaati wasawm wa can ilxubla walmurdici assawma maxalu shaahidkana wa can ilxubla walmurdici assawma weeye gabadha wax nuujinaysa iyo midda xaamilada ah soonka allah subxaanahu wa tacaala waa ka cafiyey maalin kale iyo xilliyo kale oo intaa ka xoog badan yihiin oo aynan waxba nuujinaynin xaamilana ahayn ayay qadaynayaan buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbihi wasalim afartaa qolo ee aynu soo sheegnay ayaa cudurdaar sharci ah leh fuqahadu waxay aada uga hadlaan hooyada xaamilada ama wax nuujinaysa haddii ay nafteeda u baqdo way afuri kartaa qado basaana lagu leeyahay laakiin bacdulfuqaha waxay leeyihin sida shaaficiyada oo kale haddii ay u baqdo calaa waladiha ilmaheedii ama midka uurka ku jira ha noqdo ama midkan ay nuujinaysa ha noqdee haddii ay ilmaheeda u baqdo wayna soomaysaa fidyana way ku daraysaahoo miskiin bay quudinaysaa waana ra'yi iyo ijtihaad ay fuqahadu ku tageen min xayثu daliil haddii laga fiiriyana waxaa weeye daliil sariixa loo heli maayo bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maya gabadhu mar haddayba iyadu xaamilo tahay dee waa jirkeedii oo ilmaha caloosheeda ku jiray iyadu waa isku mid oo gabarh xanuunsan oo ilmaheeda mar hadday u baqdo gabar iyada isu baqday weeye midda nuujinaysana ilmuhu waa jirkeediiyo qada unbaa lagu leeyahay ayay leeyihiin dadkaasoo dhan waxay leeyihin cudurdaar sharci ah wayna afuri karaan waana ruqsa min allahi tabaaraka wa tacaala iyo ogolaasho ilaahay u ogolaaday dadkaasi maadaama ay yihiin dad jilicsan oo aan soonku uu dhib ku yahay sida haalibka ah way afuri karaan maalin kale ayayna qadayn karaan oo ay soonkii gudi karaan mar kale ayuha alaxibatu fillah xalqadeennii sideedaadna intaasi ayay ku eg tahay maanta inta aynu ka gaari doonno xalqada sagaalaad ee barnaamijkeena daawada ramadaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa biasmaai alxusna wa sifaatihi alculaa meel kastoo aan joognaba inuu na xifdiyo na ammaansado naguna galladaysto amni iyo iimaan iyo islaamnimo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام